maaragtay rejectionka in Soomaaliya qaar ka mid ah ay Itoobiya qaadato ra'yiyadiisa lagula kala duwanaan kara si wuu qabaa oo dhowr ra'yi oo lagu kala duwan yahay baa jira waqti dheer baa aniga kala duwanayn aniga hadda saa idinla hadlaayo waqti dheer baan waxyaaba badan ku kala duwanayn maxaa la yidhahdaa maaragtay labaatameeyo sano ka badanna way istaqaanaa laakiin waxaan qirayaa in cali faqi aanu ku jirin dadka lagu tuhmi karo in maxaa la yidhahdaa maaragtay ama uu cadow Soomaaliyeed la jiro ama hadduu ilaahay maayo uu Soomaali midnimadeeda uu su'aalka keenayo haddii aan intaa idhi waan ayidsanahay in cohesionka gudaha la ilaaliyo waxaan kaloo ayidsanahay madaxda Soomaaliyeed inay dhab tahay inay shaqo fiican oo aad u macno u leh ka qabteen arrimaha dibadda waxaan kaloo ayidsanahay oo inta badan dadku ay yidhaahdeen dee waxa weeye midnimo unbaa yaa maxaa la yidhaha uurkooli baa ugaarata waatan Soomaalidu tirahdee dadkii ha la isku duwo oo maaragtay si inagoo midaysan aanu cadowgii u wada wajahno iyo challengeska kale ee iman karaba aanu u wada wajahno anigoo sidaas idhi markii la isbarbar dhigo dowladda shaqada ay arrimaha dibadda ka qabatay oo A plus lagu wada siiyey iyo midaan cohesionka gudaha oo la siinayo waxyaabo ama B minus ama D oo kale ah keebaa muhiim ah marka aan dhahno arrimaha dibadda ayaa muhiim ah Ethiopia sida loogu istaagaa muhiim ah sida meel la isaga saaraa muhiim ah sida xulufo loogu urursadaa muhiim ah sida loo iskeer gareeyaa muhiim ah sidii maalin dhaweed ay u tashleeyaan oo kale marka ambassador fiqi uu yiri haddii ay jabhadeena ku mashquulaan kuwoodan ku mashquuleynaa qiiqa ay sii daayeen taas ayaa muhiim ah ma discount garaynayo wadajirka gudaha ma discount garaynayo laakiin waxyaabaha yaryar ee walaalayaalow inaga nagu kala luma waa waxaan soo kala ceshan karno oo dib u soo kala gadan karno oo aan recover garayn karno laakiin wixii naga wada luma waad ogeydeen macatabkii iyo karooskii jigjiga bartankeeda yaalla intuu la ekaa maalin dhaweyd waad ogeydeen wixii kaa luma sidaasay kaaga lumeen marka waxay ila tahay dowladda oo loo soo jeediyo markasta inay internal cohesionka ka dagaalanto u dagaalanto oo midnimadii ay raadiso oo waxyaaba unnecessary ah aan maxaan ku dhahdaa maaragtay aan cirka lagu sii dhajinin hana lagu garab istaago arrintan qarannimada iyo ilaashiga siyaadada maxaan ku dhahdaa iyo midnimadeena dhuleed arrinta Soomaaliland cali fiqi baan la qabaa dowladda inay siyaasad cad ka yeelato weeye iyada lafteeda kuwa internalka ay ka mid tahay oo sababta ay dowladdu anigu markaa xukuumaddan ku jiray markii la qaadanayo go'aanka in Ethiopia la iska dhaxsho aan waqti badan lagu luminin waxyaabaha internalka inoo ah laakiin taa micnaheedu ma ahayn hal la dayliyo oo dadkii sii kala dirifti gareeyeen ma ahayn intaa haddaan idhi waxaan rabaa inaan muujiyo waxyaabo badan oo laga badbadiyay ayaa jira hadda odayaashii ka hadlay meesha la yidhaahdo dadkii Soomaaliyeed ee ka hadlay Bakool iyo halkii wiil oo maxaa la yidhahdaa maaragtay doolow ka hadlay oo naqaano statuska oo bulshada ka jooga anigu meesha dee waqti dheer baan oday ka ahaay ma ahayn inay national news noqdaan ma ahayn shirarkii xamar ka dhacay oo maalayacniga ahaa oo agaasimayaasha guud ay qabteen oo aflagaadada lahaa ayaa national news ka dhigay iyo international newsba dad tuulo ka hadlay oo askartii la joogtay hanoo joogta yiri iyagoo cabsi ka qaba inuu shabaab habeenkii kusoo kordhago ayaa waxaanu ogolaanay in saxaafateenu oo aan ognahay kuwa inay cadowga toos ugu shaqaynayaan ay dhahaan Soomaaliya qaar baa Masar laga diidan yahay oo Ethiopia laga taageersan yahay yaan aqbalay waxaa sii highlight gareeyay oo arrintaa run ka dhigay jawaabtii aan uba ool oo ay qolada xamar ka hadashay ay ka bixiyaan arrintaas taa markii aan ka tago arrinta ku saabsan ani waa uga duwanahay cali fiqi proxy war ma aha waxa weeye waa dagaal la sii xoojiyey waaye 1 January Ethiopia dagaal nagu soo qaaday oo isbidaysa inay naga xoog badan tahay wadamada inoo soo hiiliya proxy war noolama joogaan inaga ay caawinayaan proxy war waxaa la dhihi lahaa inagoo Ethiopia kala degan oo nabad u wada degan oo amisoomteena iyo maqaayadaheena ay isku dhex furan yihiin haddii aan ciidan Masar oo Ethiopia weerar soo dejin lahayn meesha ama ciidan kale oo dal kala weerar soo dejin markaas proxy war lahaa laguma sifayn karo arrinta hadda ka jirta Soomaaliya wadamada aidka Soomaaliya u yimid oo kuwa khatarta dareemaya oo dariska ah oo maxaa la yiraahdaa sida hadda uu cali fiqi sheegay ay ku jiraan wadamada Ethiopia dariska loo wadnaha farta ku wada haya ninkan waalan oo qofkii aan amaanin xataa laga yaabo inuu dilo oo diblomaasiyiinta Ethiopia iyo dhididku ka dhamaaday iyo cabsida
inay caytamaan maahe aan maaragtay la kontaroolo twitterkooda oo la ogyahay qaarkood xataa ay nagu xanqarsadeen oo na dhaheen xabad baana laku hayaaye maaragtay nimayow sidaan sax ma aha. Maxaa la yidhahdaa maaragtay in la ciddii naga caawinaysa waa laga maarmaan inaanu maaragtay aan sidaa u aqbalno oo definitionka proxy war iyo Soomaaliya ma lagu kor dirirahayaa. Soomaaliya nabad waaga ugu bariyay oo ciidan shisheeye keensatay oo dalal kala weerara bay u egtahay arrintaas, mana aha. Waxa weeye Soomaaliya oo xabad iyo dagaal iyo waxaagaan qaadanaya lagu bilaabay oo cadowgiis u yimi weeye. Taasaana ka dhow xalka. Intaa markaan ka soo tago dadka Soomaaliyeed waxaa la gudboon inay midnimada iyaga laftoodu ilaaliyaan oo waddanku xaaladda uu ku jiro ay ku turaan. Mararka qaar qofka madaxda ah inuu kaa caqli badan yahay maaha, inuu kaa xilkasan yahayna maaha. Meeshaan unbaa maalintaa Ilaahay u qoray. Marka inaad adiga laftaada wax reebatid adigoon madax ahayn, adigoon mas-uul ahayn, inaad waxyaabaha dhinaca wanaagsan ka egtid, sawirka weyn aad maxaan ku rahdaa maaragtay diiradda saartid, waxyaabaha yaryar oo annaga hadda intay nagu kala lumaan aan dib u kala qaadan karno hadhow aanu dib marsano. Kuwa waaweyn oo muhuraanada ah ee naga lumi kara ee forever naga lumi karana inaan wada ilaashano. Shacabka hadda Somaliland laftooda in qalbigooda la ilaaliyo, waxyaabaha danqin kara laga ilaaliyo, iska daa koonfur galbeed iyo iska dhaaf maxaa la yidhahdaa gade kuwa Somaliland bay tahay in la dhowro iyo kuwa Soomaaliyeed ee ay Ethiopia maamusho oo maalin walba maxaan ku rahdaa dhafoorka inta qoriga laga saaro hadda magacana waa la idinka bedelayaa calankana waa la idinka bedelayaa ay leeyihiin Soomaali abowdi annagoo aan dagaalka gelinay oo dhulkooda aan u dhicinaynay ay hadda leeyihiin oo marba intuu Burhano Jula u imaado uu isaga dhigaayo nin Ethiopian oo xabashadii aanu diriri jiray ninkii miskiinka ah oo annaga nala noolaayo aan farta u qoray oo aanu xagga u sii jeedinay. Marka kuwaas laftooda in loo garaabo oo xabad baa lagu hayaaye sidaas ayada maxaan ku rahdaa lagu gacan qaboojiyo dadkana ay wada jiraan waxaana waa ka gudbaynaayo waanu ku adkaanaynaayo adduunka hadda isagaaba maaragtay sii kululaanaye maxaa la yidhahdaa maaragtay aan dowladda ku garab istaagno geopolitics gameka ay ciyaarayso ku garab istaagno ciddii saxaysana ay si qabow oo aan kala dir keeni karin u saxdo ayaan dardaarmayaa. Aad baan idinkugu mahadcelinayaa Mawlid iyo Dr. Cali Fiqi iyo Hiba Saalex iyo akhyaarta kale oo tirada badan oo meeshaan ku jirto. Aad baad noo mahadsantihiin. Dr. Adam